ma ka mid tahay dadka haysta taleefanadan Galaxy Fold, Galaxy A10s, Galaxy A20s, Galaxy A50s, Galaxy 70, Galaxy A80, Galaxy A40, Galaxy A10, Galaxy A90, M10s iyo M30, Galaxy Note 10, Note 10 Plus. dhammaan taleefanadan aan soo sheegnay shirkadda soo saartay oo ah Samsung waxay shaacisay in ay joojisay update-kii ay soo saaraysay taas oo macnaheedu tahay in sanadaha soo socda ama 4 sano oo soo socota aysan jirin wax update ay heli doonaan taleefanadan 4 sano ee soo socota Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22 Plus, S22 Ultra, S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A73, A33, Galaxy A34, Galaxy A24, Galaxy F54 5G ayaa ah taleefanada ay shaacisay shirkadda Samsung in ay heli doonaan updateska. Waxa macquul ah in isweydiinayso 4 sano kadib suurtagal ma tahay in ay updateska taleefanadan ay ka joojisay ay soo saartay shirkadda Samsung. Waa macquul haddii ay dhil fiican ku aragto. balse aniga ilama ahan maxaa yeelay uma malaynayo in ay dib ugu laaban doonto wax laga soo tagay halka aynigeedii ay updates badan ay sameynayaan ay sarakac sameynayaan sanadba sanadka ka dambeeyana ay wax cusub soo saarayaan haddii ay doonayso inay saaxad tartan ku sii jirto waxay ku qasbantahay inay hore uga sii socoto ay wax cusub soo saarto waa aniga ra'yigayga mid ah waxa laga yaabaa in ay isweydiinayso software update muxuu muhiim ugu yahay taleefankayga software updates dadka ila socdo oo teknoolajiyada ama IT-ga ku jira waxa aad bay u fahmayaan laakiin waxaan rabaa dadka kale oo daawanaya oo aan wali update ka ahayn in aan ka dabageeyo software update wuxuu muhiim u yahay jiritaanka systemka taleefankaaga sida ammaanka ama security-ga taleefankaaga kamaradaha taleefankaaga codadka iyo sidoo kale haddii aad doonayso in aad taleefankaaga ku isticmaasho applicationada caanka oo la isticmaalo maadaama application walba bil walba uu sameeyo update waxa ku qasban tahay taleefankaagana inuu update sameeyo si ay isula jaan qaadaan ay compatible isugu noqdaan haddii kale awood uma yeelan doonto inaad isticmaasho applicationkaas waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaan wax uun ka faa'iiday xog ah oo aan horay u ogeyn haddii aad ka mid tahay dadka haysta taleefanada aan soo sheegnay ama aad og tahay saaxiibka oo haysta taleefankan commentiga uga yeer una sheeg inuu iska bedelo adigana haddaa haysato iska bedel mahadsanid